السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ويد wada salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Zack Multimedia maanta waxaan doonayaa muuqaalkani in aan idinkula wadaago sida loo sameysto composition runtii compositionka haddii aadan sameysanin ma ku editing gareyn kartid muuqaal Adobe After Effects waana cashirkii labaad ee aan doonayo in aan ku fahmno composition waayo mararka qaarkood waxaa dhici karta dadka markay bilowga ay ku yihiin softwareka qaybta ugu horeyso ah compositionka in aysan fahamsanayn waayo qaybtaas waxaa la doonayaa in aad si wanaagsan aad u fahanto mar alla markaad si wanaagsan aad u fahamtana inaad si fahamtana programkaasi way ku sii fududaanaysaa sidoo kale waxaan ku dari doonaa qodobo kale ee marka ku soo dhawaada muuqaalkan ugu hore marka waxaan soo furanaynaa Adobe After Effects runtii haddii qaybtani inta uusan kaaga soo muuqan taski barka waxaad ka raadin kartaa start menuga kadib marka qaybtaasi ayaad ka soo yara kicinaysaa Adobe After Effects 2021 kadib markaan ku yara dhufano isla markiiba wuxuu bilaabayaa softwareka in uu soo yara kaco xogaa loading ayuu gelinayaa sida u jeedana qaabka Adobe After Effects sidaan ayuu u soo muuqanayaa waana interfacekiisa oo markuu soo loading gareynayo qaabkani ayuu ku soo yara kacayaa Adobe After Effects 2021 uu ku duwan yahay kuwii hore waayo kuwii hore sida nashqadan kuma uusan soo kicinin mar walba sanad walba waxay ku sameeyaan update marka ugu horeyso sidaani ayuu kugu soo yara kacayaa oo qaybtan ayuu ku yara keenayaa laakiin waxa dhiman box kale inuu sidan u soo kiciyo waayo qaybtan waa qaybtii sidoo kale asagana aad compositionka aad ka samaysan leedahay laakiin qaybtan had yartaan uma baahni waayo qaybtani waan iska yaran kansalaya sida aad u jeeda marka ugu horeyso waa kan interfaceka Adobe After Effects ugu hore marka waxaad la yaabaysaa waxay tahay waxyaabadan tuulahan faraha badan oo qaybtan iyo qaybtan saaran ayaad la yaabaysaa haddii aad qaybtaasi aad isku yar mashquuliso way adag tahay inaad programkani aad barato mar walbana waxaa muhiimsan in aad qayb aad ka barato marba qayb aad kasii barato waayo guriga markii la dhisayo hal mar lama wada dhiso waayo guriga qayb ayaa loo dhisaa insha Allah marka waxaan isku yareeday doonaa in aan sida ugu fudud aan idinku fahamsiyo programkani sida u jeedo marka qaybtani waa workspace-kii waa qaybtii lagu yara shaqeyn lahay qaybtani inta ilaa iyo intan waxaa loo yaqaanaa timeline sida aad ku soo marteen Adobe Premiere Pro-ga haddii aadan soo daawanin koorsadii Adobe Premiere Pro-ga qaybtan kore ayay kaaga soo yara bixi doontaa insha Allah marka waxaan rajeyn doonaa koorsadaas inay ku yara caawin doonto inta badan haddii aad soo isticmaali jirtay softwareka Adobe Premiere Pro softwarekani gacanta ayaad ku haysaa 80% in yar kaliya ayaa ka yara dhiman qaybtan waxaa loo yaqaanaa timeline waa halka muuqaalada lagu jarjaro dadka inta badan waxay ku yaranaceen softwarekan waxay tahay video composite waayo halka layer markaad ka siiso layer kale ayuu ku yara sameynayaa haddaad mar kale ka siiso layer kale ayuu ku sii yara sameynayaa ma aan sida Premiere Pro oo hal layer kaliya lagu yar wadayo muuqaalka sidoo kale meeshani waa meeshii aad ka arki lahayd muuqaalada sida timeline-ka markaasi loogu jarjarayo waa meesha aad ka fiirsan lahayd muuqaalka sidoo kale meeshan waa project media waa meesha aad ka soo gelin lahayd muuqaalada ha ahaato sawirada ha ahaato codadka waa meesha aad ka soo gelin lahayd meeshani marka sidoo kale meeshan waxay aad iyo aad u khusaysaa waxay tahay xagga iyo qoraalka iyo waxyaabo kale muhiimsan ayaa ku jiro insha Allah qaybtaasni waan tagi doonaa marka qaybtan waa qaybtii toolska sida move toolka pen toolka shapeska iyo rotationka wax badan ayaa ku jiro marka qaybtaasi waan u soo laaban doonaa oo muuqaalo gooni ah ayaan ka soo sameyn doonaa marka waxaan doonayaa in aan sameysano composition waayo haddaadan composition aadan sameysanin kuma shaqeyn kartid timeline-kani ugu hore marka compositionka dhowr qaabood ood u sameyn kartaa qaabka ugu hore waxay tahay in boxkani new composition aad ku yara dhufato sidaan waad u sameyn kartaa sidoo kale waxaad u sameyn kartaa inaad compositionkaasi aad ku dhufato kadibna aad kasii doorato composition shortcutkeedu uu yahay Control N sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa qaabka saddexaad wuxuu yahay in aad buttonkaasi aad ku dhufato oo new composition marka anyway saddexdaas qaabood ilaa afartaas qaabood oo shortcutkana ku jiro waad u sameyn kartaa marka new composition markaad dhahdo wuxuu kuu soo bandhigayaa interfacekani waxaa lagaga baahan yahay inaad si fiican aad u fahamto interfacekan marka ugu horeyso compositionka sidaan ayuu kuugu soo bandhigayaa muuqaalkaaga muxuu ka hadlayaa compositionkan muxuu ka hadlayaa tusaale ahaan wuxuu ka hadlayaa video production oo kale ayuu ka hadlayaa video
production waa adigoo sameysanayo sequence laakiin kan magacii sequencega looma yaqaana kan waxa loo yaqaanaa composition sidoo kale muuqaalkaaga ma 4K ba ma HD ba ma full HD ba marka meeshan ayaad ka dooranaysaa muuqaalkaaga hadduu HD yahay qaybkani 720 ayaad aadaysaa hadduu full HD yahayna qaybkani 1080 hadduu 4K yani qaybtan ila 8K inta ayaad ka yara helaysaa sidoo kale meeshani muuqaalkaaga high iyo widthkiisa ayaad meeshan ka yara dooranaysaa sidoo kale meeshani frame rate-ka muuqaalka lagu yara duubay meeshan ayaad ka bedelan kartaa tusaale aan 29.97 inta badan waxa ugu fiican waxay tahay 30 frame 25 iyo 29 aad iyo aad u fiican tahay laakiin midkani 60ka dadka inta badan gameska ayaa yar adeegsadaan sidoo kale dadka bilowga ah waxay aad iyo aad ugu yar jahwareeraan waxay tahay qaybtani inta start time code-kani wuxuu ka caawinayaa tusaale markaad muuqaalka aad soo geliso timeline-ka waxaad arkaysaa hadduusan ever uusan ku ahayn meeshan oo dhan waxaad arkaysaa in tiro kale oo kugu soo yar qarayo 5 second aysan kugu soo qoraynin 2 second 3 second geeso muuqaalka kuguma soo qorayo marka meeshan iska yar fiir in ever ay ku tahay sidoo kale qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan la doonayo inaad fahamto qaybtan ever kan waxay u taagan tahay millisecond waa daqiiqadaha ordaya tusaale ahaan saacadii oo kale markii oo qof daqiiqad loo qabanayo kale ma ahan daqiiqada waa saacada ordayso waa millisecond ayaa loo yaqaanaa qaybtanne oo 20 hadeertan igu yar jirto waa second waa ilbiriqsiyada waa saacada xoogaa yar soconayso waa seconds ayaa loo yaqaanaa kanna sidoo kale waxaa loo yaqaanaa ever kan kale waxaa loo yaqaanaa minutes daqiiqado tusaale 5 daqiiqo miyaad doonaysaa 4 daqiiqo miyaad doonaysaa midda ugu dambeysa marka waxay tahay saacad ma waxaad doonaysaa 2 saac ma waxaad doonaysaa 4 saac marka dadka inta badan muuqaalada editing gareeyaan oo muuqaalada filimada oo kale editing gareeyaan projectiyada waa huge aad iyo aad ayuu balaaran yahay markaasi waxay dooran karaan 4 saacadood 2 saacadood oo kale ayay dooran karaan waayo projectigooda ayaa aad iyo aad u weyn marka anaga hadda tusaale aan waxaan dooranaynaa 20 ilbiriqsi 20 second ayaan dooranaynaa haddaad doonayso marka 10 second waad ka yara dhigan kartaa kadib marka sidoo kale meeshan background-ka waa marka intaada muuqaalka soo gelinin screen preview-ga ma waxaad doonaysaa in uu background black ahaado inta badan black ayaa loo adeegsadaa kadib marka waxaad leedahay okay markaad okay dhahdo sida u jeedo qaybtani timeline-ka ayay kuu soo furmayso meeshani marka sida u jeedo waa transparent oo kale ayuu kuu sameynayaa fictani ayaa meeshan ka yar qaadaysaa oo sida black ah oo sida uu kugu soo muuqdo marka hadeertan waxaad fahantay sida composition loo sameysto tusaale error ayaa ka dhacay oo ah tan ayaa waxaad geysay inta project effect controls inta ayaad keentay adiga Adobe After Effects ku dhawaad waa isku xogaar waa isku yar qastay oo gacanta ayaa kaaga yara dhacday workspace-kiina oo default-iga uu ka halaabay sidee ayaad ugu soo celin kartaa workspace-kii hore aad u taqaanay kaliya waxaad tagaysaa Windows kadibna waxaad ka sii xulinaysaa workspace iska fiir marka inay default-iga ku doorantaa waayo anaga hadda ma sameysan workspace anaga noo gaar ah kadib waxaad ka sii tagaysaa reset default kadib marka sida u jeedo sidiisa hore ayaa lagugu soo celinayaa si doonta hadaad u qalado sidiisa hore ayaa lagugu soo celinayaa marka waxaan rajeynayaa inaad composition-kani aad si fiican aad u fahanteen waayo waa qaybtan waa qaybaha ugu muhiimsan waxa laga yaabaa muuqaal 10 second aad rabto inaad doorato kadibna meeshan aad ku qorto 10 oo kale inaad ku qorto waxaad dooranaysaa waa 10 saacadood qaybtan waa daqiiqadaha qaybtan waa secondska sidoo kale qaybtan waa millisecondska daqiiqadaha ordayan oo kale sidoo kale hadii aad doonayso inaad video aad soo gashato kaliya 3 qaabood waad ku soo gelin kartaa marka ugu horeysa inaad dhahdo file kadibna import inaad dhahdo kadibna aad ka sii doorato file sidaas waad ku soo gelin kartaa sidoo kale inaad muuqaalka aad soo jiido aad keento qaybtani inta timeline-ka inaad keento waad ku sameyn kartaa sidoo kale meeshani media-hani inaad double click aad siiso mar allan markaad double click aad siiso aad soo gashato muuqaalkii aad doonayso markaasi marka sida u jeedo marka weli timeline-ka kuma yaalo muuqaalkani kaliya waxaad sameynaysaa muuqaalka ayaad soo yar jiidaysaa waxaad keenaysaa dhanka iyo timeline-ka marka ugu horeyso marka iska fiir marka calaamadani in bilowga ay ku taagan tahay waayo muuqaalka hadduu bilaabana intan muuqaal daag ah ayay ku bilaabanaysaa laakiin haddii oo kan bilowgan aad keento aad soo jiido
muuqaalka intaasi ayuu ka yara bilaabanaya. Marka sidaa u jeedo marka sidaasi fudud ayaad ku soo gashan kartaa muuqaalka markaas aad doonayso. Marka waxaan rajayn doonaa in aad muuqaalkani labaad aad si fiican aad u fahanteen. fadlan haddii ay tahay marka kugu horeyso channelkeena soo booqatay, fadlan subscribe saar, furo calaamada gambaleelka si ay kugu soo yara dhacaan muuqaal walba aan soo gelino. inta badan channelkan waxaan uga hadlaa arrimaha multimedia iyo sidoo kale product review oo aan dhawaantan aan doonaya qaab professional ah inaan u soo gudbiyo. dad videogan ka faa'iideyna la garee si YouTube-ka videogan u sii faafiso una sii gaarsiiso walaalaha kale. lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yara faa'iideystaan. ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.